war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda Kenya ay abaabulayso xasilooni darro laga abuuro gudaha Soomaaliya. war-saxaafadeedka laga soo saaray wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya ayaa waxaa lagu yiri dowladda federaalka Soomaaliya waxay si dhow ula socotaa abaabulka military ee ay dowladda Kenya maalmahan ka wado aaga Mandera iyada oo hubaynaysa jabhad ay si sharci darro ah dalkeeda ugu martigelisay si xasilooni darro looga abuuro gudaha Soomaaliya. dowladda federaalka Soomaaliya waxay ogaatay in ciidamada Kenya ay hub iyo maleeshiyaad ku soo daadguraysay magaalada Mandera si duulaan loogu soo qaado magaalada Beled Xaawo ee saldhigyada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee aagaas ku yaala ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ay soo saartay xukuumadda federaalka Soomaaliya. war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale waxaa lagu yiri dowladda federaalka Soomaaliya waxay uga digaysaa dowladda Kenya ficilada guracan ee ay ku wiiqayso nabadgelyada guud ee gobolka Geeska Afrika, waxaanay mar kale ku celinaysaa inay Kenya ka fiirsato faragelinta qaawan ee ay ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya oo ay ka dhalan karto xasilooni darro saameyn ku yeelata amniga gobolka. gabagabada war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxaa lagu yiri dowladda federaalka Soomaaliya waxay qaadaysaa tallaabo kasta oo ay ku xaqiijinayso madaxbannaanideeda siyaasadeed, wadajirkeeda dhuleed iyo ilaalinta sharafta iyo karaamada shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. xiisada u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya ayaa cirkays ku shareertay kadib markii Soomaaliya ay xiriirka u jartay Kenya iyadoo ku amartay diblomaasiyiinta Kenyaanka ah inay degdeg uga baxaan Soomaaliya halka ay u yeedhatay diblomaasiyiintii Soomaaliya u fadhiyay Kenya. Axmed Maxamuud Yuusuf, Telefishin Kasaab.